بسم الله الرحمن الرحيم ولا الكسو دبو كانال كسعودال بلشو برنامج كني هدي أكو عجبي لاك شير يسبسكرابك وحقينا فكر كيغانا وإنو مهم إنو غريب كومنتيغا سياد إنو ديري جريسيد waxaa munaasib ah inaan isdul taagno fawaa'idda uu leeyahay shajarata sidr geedka gobka ah iyo fawaa'idda uu leeyahay ayaynu in yar isdul taagaynaa geedka gobka ahi wax kale kuma tilmaami karo geedka gobka ahi waa hadiya min hadiyaati illaahi tabaaraka wa tacaala waa hadiyad kamida hadiyadaha ilaahay aadamaha uu soo raaciyay markuu arladan keenayay geedaha uu ilaahay soo raaciyay ee manfacada badan ayuu geedka gobkii ka mid yahay geedka gobka ahi ilaa iyo 40 nooc oo gob abaa adduunyadan ka baxa laba geed oo isu dhow oo midhahoodu haddana aanay dhadhanka isku mid ahayn baad arkaysaa maa min shajara oo gob ah oo dhadhankeedu geedka kale la dhadhan yahay geed waliba geedka kale dhadhankiisa uu ka duwan yahay waa ilaa iyo waxay yidhaahdaan 40 sinfi oo gob ah baa arladan guudkeeda ka baxa ku darsoo caalamka oo dhan kama baxo geedkan gobka ahi caalamka dhammaantii lagama helo buqcadan aynu joognaa waa buqcadaha ay ugu badan yahay geedka gobka ah haddana ma intifaacsano geedka gobka ahi qur-aanka makaanad buu ku leeyahay xusna wuu ku leeyahay ilaahayna ashjaarta uu tilmaamay ee qur-aanka uu ku tilmaamay ayuu ka mid yahay ilaa iyo 4 meelood ayaa qur-aanka kariimka ah lagu xusay haadihi shajara waa shajaro qaniimo ah oo haddii alla ka dhigo ummadda ilaahay uu wadeeca dhigay ilaahay uu fadli badan iyo nicmo badan oo noloshooda uu ka awdaya ilaahay uu siiyey ilaahay qur-aankiisa suurat الnajm 2 meelood buu qur-aanka kaga sheegay wuxuu ilaahay qur-aankiisa ku yidhi id yaksha sidrata maa yaksha iyo cinda sidrati اlmuntaha cindaha jannat اlma'wa waa geedka webiyada jannadu ay gudihiisa ka soo baxaan waa geedka 4 webiya adduunyada ugu qiimo badan rasuulku uu sheegay inay ka soo farcamaan waa geedka ilaahay u doortay inuu laba gardayo noqdo oo cilmiga adduunyada iyo cilmiga ladunniga ah buu kala soocaa waa geedka uu ku intihooda aqoonta makhluuq marka laga reebo xabiibkeena maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markii samaawaadka lagu casuumay nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo uu horgale u ahaa sayidina jibriil calayhi salaatu wasalaam halkuu dhaafi kari waayey malakul jibriil uu yidhi halkan ma dhaafi kara anigu cinda shajarati sidri bay ahayd maalinta nabiga la soo dhaweynaya calayhi salaatu wasalaam ee malaa'igta oo dhan heeganka la geliyey geedkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala shacni aanu lahaan jiranoo hore ayuu ilaahay hubiyey id yaksha sidrata maa yaksha waa geed ilaahay subxaanahu wa tacaala uu karaameeyey horta weeyaan waa geedkaa agtiisa lagu soo dhoweeyey nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam waa geedka malakul jibriil uu dhaafi kari waaye geedka sidrat almuntaha waxaa loogu bixiyey cilmiga makhluuqaadka halkaa ku intihooda wixii ka dambeeya cilmi ilaahiya oo keliya ayaa halkaa ka sii farcama waayahay mar saddexaad ilaahay qur-aankiisu ku sheegay suuratu saba wuxuu ilaahay yidhi wabadalnaahum bijannatayhim jannatayni dawaatay ukulin khamtin وأثل وشيء من سدر قليل مر أفرادنا إلى هي سورة الواقعة وحول وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوط نين عرابية أي الرسول كوي مدوحوا للنبي الله وقيد قفكي صدبه
ayuu haddana ilaahay jannada ku sheegay markaasuu yidhi muxuu yahay geedku markaasuu yidhi waa sidriga markaasuu yidhi halkuu dhib ka leeyahay qodax buu leeyahay xanuun badan markaasuu yidhi qur'aan af carabiga miyaad fahmaynin sawka ilaahay makhduudin uu yidhi kelimatu makhduud in su-aashaa nebi moxamed la weydiinaya ilaahay wuu ogaa markaasuu ilaahay wuxuu sii raaciyey sidrin makhduudin waa geed gob ah oo qodaxdii laga reebay makhduud waxaa laga reebay qodax male geedka jannadu marka geedka gobka ahi waa geedaha jannadu ka mid yahay innagu ummad ahaan manaafic badan buu inoo lahaan jiray manaafic badan ayuu inoo lahaan jiray waa geedaha kaloo dhan wuxuu kaga duwan yahay gu iyo jilaal marna ma qallalo waa geed cagaaran gu iyo dayrba jilaal iyo xagaa ma kala laha geedkan waa geed marka dhirtu ay caleenta daadiso ee ay midhaha joojiso wakhtigaasuu isagu hawraa wakhtigaasuu midhaya wakhtiga jilaalka dhirta kaloo dhani midho ma bixiso ila sidr geedka sidriga keliya ayaa midhaha bixiya oo dadka reemiyiga ay ku eertaan waa dhirta Soomaalidu ay tidhaa waa birimageydada dhirtaba gobolaan la jirin iyo ogow lama garaacaan inuu jiro marka geedkan gobka ah manaafic fara badan ayuu bini aadmiga u leeyahay waxaynu u isticmaali jirnay waynu ka kibirnay waxaynu inagu lahayn baynu ka kibirnay waxaa laga dhigan jiray saabuun qasil buu ahaan jiray timaha waa lagu dhoobi jiray toxobta iyo wixii la mid ah madaxa marka lagu dhoobo caleentiisa qofku wuxuu ka heli jiray deganaansho muhaddi weeye halkan kiniinka muhaddi'aadka laga isticmaalayo beddelkeeda haddii caleenta gobka inta la tumo madaxa lagu dhoobo qofku nasiinuu ka helayaa qofkii hurdo waayena hurduu ka helayaa qasil baa la odhan jiray geedka qasilka ah waxaa laynoo sharciyeeyey alxayaa waalamwaad in loogu maydho dadka nooli way ku maydhan jireen nebiyullaahi moxamedna waa ku maydhan jiray calayhi salaatu wassalaam waxaanu ina faray maytaaddeenna in lagu maydho xadiid saxiix ah oo bukhaari iyo muslimba ay soo wariyeen wuxuu nebigu odhan jiray ghasiluuhu bimaa'in wa sidrin ku maydha biyo iyo caleengobeed ku maydha maydkiinna biyo iyo caleengobeed waxaad in badan aad arkaysaa culimmada qaarkood ama dadka qaarkood oo fatwoonaya in booskaa ay saabuuntu beddeli karto ma beddeli karto sir nebi baa ku jirta amar nebina wuu ku jiraa markuu nebigu noolaa calayhi salaatu wassalaam maadooyin fara badan oo lagu maydhan karo oo uskaga la iskaga zuulin kara baa wakhtigiisiiba jiray calayhi salaatu wassalaam sabankii rasuulkeenna maadooyin fara badan oo saabuuni ah oo lagu maydhan karo way yaalleen laakiin nebigu wuxuu u dooray maydkeenna in lagu maydho sidriga waxa ku jiraa waxa weeyaan qofka lagu maydho sidrigu dhaqso uma uro haddii sidriga lagu maydho ruuxa jidhkiisu dhaqso uma uro sababta oo ah uma qurman ka wada sababta oo ah waxa weeyaan caleentan gobka waxaa ku jira maadooyin la dagaalama bakteeriyada waana qaboojisaa jidhka bini aadmiga qabow bay siisaa manaafic fara badan bay leedahay mana beddeli karto saabuuntu maydka in lagu maydho xataa haddii qofku uu dee waayo waxaa la yidhaha dayax haddii la waayo xidigaha lagu gudaa biyo haddii la waayona ciiddaaba lagu gebagabaystaay meel caleen gobeed laga heli karo iyo sidri in maydkii la yidhaahdo sidriga iska daayo caleen maxaanku idhaahdaa ku maydha saabuun wax sharciga hooy sheegaya ma jiro xikmad rasuul baa ku jirta oo aanu weli bini aadmiga aqoontiisu gaadhin marka ruuxu haddii uu dhinto iyo hadduu nool yahayba waa lagu maydhaa geedka gobka ah
وجيدها وجهر كقبوله جيدها وجهر كقبوله بوكم ديها وأنا جيدها ميلها محان كذا لما الدجاجة ده على هدي لو جب يراه هرتشوك سنكرة يعني محان كذا عرضوا إني سوشو جيد كجب كأ وحويان جيدها وجهر ريا واجي هراء أي نكسم يسنشر مدكت الزند بالله زندي أيها في عربي قالوا إلى هذا مدك أيينو في صومالي كورن شري وأبا إيمان دونتا الجيندن إيو وحن إسودا أي استاجي دونان وقالوا ولبا أي أنو قن دونتا أسل كيتي ومضوا لبا وحي هدأوا لها أي استعمال دونتا عالم كمان أنت أي كنا الله هاي ومدقن كيدي سيد يسي ما شرت إنك مويانه إربط بقى وقو يرود بدأ الله ينوغا كينا فندع البقى وقو يرود بدأ ينوغا كين سنة جيده هنينا ووضا قلح بريكا مالين هدي الدنيا دني استاكتو رشده هيدو هدينان أبد كينا أينان تاريخ وقتكين وهدي تاسو قبشتا تاسا لوغا قوري كرا هدي تاسو تمادو تاسا ليالي كرا هدان لوغا تكين هدو وحي نقون يساون ومد يدو هلكا جوكتاون تاريخ دي دلوايو جيدك جبك أهي وحو كمدي هي جيدها مدقت لقد عليه الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون جيدك مدقت الله جيدها أغفي عن إسقو قوين بو بحيا طبك جيدك جبك الله ويرحضا وجيد آدو عاقبة بدن وجيد دوائية وجيد إلهي سبحانه وتعالى صان كبو إليه إلهي سبحانه وتعالى منافع فربضا آدمها أسر راعية وهدية من الله وهدية إلهي وحوليه مركي اللباري جيت كجبك أمريهيسا علينتيسا با استعمال كيدا وحالقه لما دوين كنسر كهرتجا ما دوين كنسر كهرتجا علينت جبك انتو الله صوغرتو baasan kor yar lagu darsadaa dabadeedna waxa la gelinayaa ijiinka yar ee sharaabka lagu walaaqo sida sharaabka loo cabaa wax side effectsna male ma fahamta maadooyinka ku jira milihiisa iyo caleentiisa maadooyin baa ku jira ka hortagi kara kansarka hadduu yahay ka naasaha ku dhaca hadduu yahay ka maqaarka ku dhaca hadduu yahay ka maskaxda ku dhaca hadduu yahay ka caloosha ku dhaca kansarada uu ka hortagi karaa waxa kaloo inta badan saxa shaqada calooshaada haddii maalan dheefshiidkeedu xumaado ama aad waxyaalo maxaa naqas badan ku aragto ama siyaabo badan ay kuu ciladayso midhaha gobka iyo caleentiisa haddaad shiidato labaduba way ku anfacayaan gobka waxay xoojiyaan lafaha dhismaha lafaha calciumta ayay aad iyo aad u caawiyaan marka gobku wuxuu dhisaa lafaha bini aadmiga laakiin inagu ma isticmaalo ninka harabiya la jooga ee ooman baan ahay bay yiraahdaan marka waynu ka qatanay inagu dib mooye dheef inaguma hayo xataa midhihiisa meelaha hadduu daadsan yahay cidiba quud ma moodo waxa kaloo aad iyo aad u caawiyaa miisaanka qofka isticmaala gobka midhihiisa ama caleentiisa miisaanku kuma kordho takhfiif almiisaan buu ku sameynaya geedka gobka ahi caleentiisa iyo midhihiisu jidhkeennu marka uu sameeyo dheefshiidka maadooyin sunaa ka dhasha oo kaarboonkuba dee ka mid yahay sumo badan baa ka dhasha oo kaadidan aynu soo saarayno sun badan baa la socota dadka qaarkood kaadidaa ku hadhadha dabadeedna dhiigga inay raacdo sumoobaa laga yaabaa siyaabo badan baa dhiigga bini aadmiga suni u raacdaa geedka gobkii wuxuu ka mid yahay maadooyinka maydhi kara dhiiggaaga dhiigguu sifeeyaa geedka gobkii cunitaankiisu waxa uu difaacaa bay yidhaahdaan cunitaanka geedka gobka midhihiisa ama caleentiisoo sharaab laga dhigtaa waxay anfacdaa asaasaqa qofka inaanu ku soo degdegin
تلف الدماغ مسكحدو إني دخسو أزال سقدو وكإلاليا وعلين تجوبك أمام ده جوبك قفكو دخسو ما أزال سقو وحكالو الله يراهضا روحو هدوح مديسية هاي وعلين تجوبك أنت لوش إذا شراب لو قدقو وحمد شبيه وحكالي فائدة سا علين تجوبكو أمام ريهيسو dadka xiiqda qaba intay caleentooda ay qooyaan haday laabta ku dhoobaan ama ay caleentiisa ay sharaab ka dhigtaan ama midhiisa xiiqda uu baabi'iyaa sababtoo ah xiiqdu wax kala ma ahan waa balqan fara badan oo sanbabada ka buuxsamay sabab doontaan haba keentee laakiin waxa weeye marka geedka gobkii balqamka uu khafiifiya sida fooxeenoo kale fooxuna balqamka uu khafiifiya oo ka hadli doona fooxa insha Allah fawaidis gobku balqamka wuu nuugaa marka qofka xiiqda qaba wuu fiican yahay waxa kale oo muhiima qofka dhiikarka qaba hadduu isticmaalo maydhasho ahaan ha u isticmaalo cabitaan ahaan ha u isticmaale dhiikarka wuu dejiyaa waxa kale oo aad iyo aad ugu fiican yahay dadka rheumatismka qaba hadday isticmaalaan way ka nafisayaan dadka dhaawaca caloosha qabeed waxaanaynu nidhaahno haddii aan la yidhaha gastrikada qaybta alsarka la yidhaha ee dhaawaca keenta hadduu ruuxu isticmaalo midhaha gobka ama caleenta gobka aad iyo aadbu waxaa kaloo iyana muhiim ah dadkan jiimka cayaaraha ama kubadda cayaaraha ama howlaha qabta ee muruqyadu ay daalaan gobku aad buu u anfacaa hadday midhihiisa cunaan hadday caleentiisa ismariyaan hadday caleentiisa cabaan muhiim waxa ayana caleentiisa haddii caruurta loo shiday ama dadka aynu nidhaahno gooryaanba caloosha kaga jira samaydaan gooryaanka caloosha aad iyo aad buu u dilaa waa caleenta gobka hareeraheena ka buuxda haddii sharaab looga dhigo ubadkeena gooryaan ku arki maysaan dadka atixaal waxaa la yidhaha beeryarada dadka beeryaradu xanuunayso haddii caleenta gobka loo shiido ama midhaha gobka ay cunaan uu ka raysanaya wuxuu siiyaa jidhka firfircooni iyo awood hor loo geliya haddii qofku ilka xanuun leeyahay caleenta gobka oo la qallajiyey iyo waxaa la isugu tumayaa geedkan ee qaranfulkan idhaahno dhegayara soo ma taqaaniin qaranful iyo caleenta gobkoo la qallajiyey baa la isugu darayaa daankuu gashanaya waa calashanayaa garaaca wuu ka joojinayaa ilkuhu way ka joojinayaan nabarrada haddii caleenta gobka inta la qajiliyo dusha lagaga daadiyo waxay noqonaysaa dhayme ubadka yaryar oo soo koraya ee dhaqso u kici waaya dhaqso u tallaabsan waaya haddii intoo lagu dhoobo caleenteeda lagu duugo oo cabaar lagu yaro qallajiyo muddo ilaa 15 cisho ama 20 cisho wixii la mid ah ilmaha wuxuu yeelanayaa awood uu isku taago oo ku lugeeyo marka laftu jabto waxaa la isugu dari jiray caleenta gobka iyo geedka aynu xabagoda nidhaahno geedka xabagoda la yidhaahdo waa dheecaan buuruha ay soo da'aan af carabigana waxaa lagu yidhaahdaa muumiya ayaa lagu yidhaahdaa muumiya waxa weeyaan waa dheecaankii ay masaaridu dalkeenna ka qaadan jirtay ee ay meydka marin jireen meydka la mariya muumiyaha muddo ma qurmi jirin muumiya ayaa la yidhaahdaa dhulkeennu hodan buu ku yahay buuraha xeebta ku sii jeeda baa da'a waa maxaan ku dhaha dheecaan markaad ursato aada moodaysa habeedda geela uun kamaba garanaysa xabagod baa la yidhaahdaa intoo la ridqo ayaa lafta jabtay marka la kabayo ayaa dusha laga mariyaa iyadoo lagu daray caleenta gobka dabadeedna kamaha alla saaraa 7 cisho ku kamayaa ruux hadduu sida kale u caafimaad qabo lafta ay u xidhiidhaysaa haddii la isugu daro caleenta gobka iyo muumiyaha xoolaha cadhooba iyo finanka ka soo baxa wajiyada ha noqdaan findoob iyo wixii la mid ah haddii la mariyo wajiga caleenta maxaan ku idhaa finankaasi way tirtirmayaan oo way baaba'ayaan
marka geedkan gobka ahi waa geed karaamo leh oo mucjiso ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ifka inoogu soo saaray mase intifaacsano haddii sixir la sheegana waa ilaahay waa inagaan ka soo warranayoo waxyaalaha lagu dabiibuu ka mid yahay haddii caafimaadkii basharka heli maysid adduunka hal kiniin ah oo 4 cudur ama 5 cudur kaa daweynaya 4 cudur ama 5 cudur ama 6 cudur kaa daweynaya heli maysid laakiin maanta waxaa budh ah oo inala yaala hal geed oo laga yaabo ilaa iyo 20 dawo inay ku jiraan waa farsamadii ilaahiga ahayd oo wax bini aadmi faragelina aanay ku samaynin marka dhirta ilaahay inagu beeray waliba mantiqadan aynu ku noolahay waa mantiqadaha ugu hodansan dhirta waxaana la yidhaahdaa qaacido ah qof kasta dhirta gobolkiisa ka baxda iyo jidhkiisu way isleeyihiin geedaha meel kale looga keeno raad aanay ku yeelan karin ayaa dhirta dawaa'iga dalkiisu ay ku yeelataa marka dhirtan in badan oo faa'iido leh baa taala geedka sidriga ah ee gobkina wax allaaliya wax dhaawacaya dib uu u geysanaya ma jirto waxaanaynu isticmaalnaa kimikada iyo waxa yiraahdaan cudurka ma daweeyaan laakiin calaamadaha cudurku may qofka ilowsiiyaan cudurka ma daweeyaan laakiin calaamadaha cudurka ayuun bay qariyaan madax baa ku xanuunaya paracetamol baad liqaysaa garaacii unbuu maskaxda qaybtii dareemaysay inuu madaxu ku xanuunayo unbuu firis garaynaya laakiin sababkii madaxa ku xanuuninaya ma taabanayo lidaalik baa waxaad arkaysaa had iyo jeer marka laga hadlayo dhirta iyo faa'iidadeeda shirkadaha dawooyinka soo saara mar walba dagaal bay ku soo qaadaan shirkadaha dawooyinka soo saara raalli kama noqdaan inay bini aadmigu u soo noqdaan dabiicadoodii iyo nolosha ku noolaayeen ee lagama maarmaanka ahayd waxaa laga yaabaa hal ruux inuu u dhimanayo geed agtiisa ku yaal hal ruux inuu u dhimanayo geed agtiisa ku yaal baa suurtagala anigoo musaafira halkaasaan ku gebagabayn doonaa oo xeebaha iska lugaynaya ayaa waxaan ku soo baxay nin xero meel loo ooday marka meel yarba maxaa tuulo yar bay ahayd oo shaah baan kacbo way garanayeen markaasaan sheekh maxamed oo nin baa naga xanuunsanaya markaasaan ku dhimeeyo way tuseen dabadeedna waxaan arkay inuu qabo jooniskii cagaarshowgii matag buu dabaal joogsanaya waa meel aan de farmasi u dhoweyn oon dhakhtar u dhoweyn oo waxba markaasaan ku yidhi wareedhe geedkii dhuurta la odhan jiray meelahan agtiina miyuu ka dhow yahay markaasi halkaas ku yaallaa geedkii baan xididkiisu soo gooyey waan u tuma waan siiyo waxaan ku yidhi waan idin dhaafayaa 2 maalmood baan idinka maqnaanayaa geedkaa u karkariya way u kariyeen markii uu cabbay habeenkii uu seexday uu gamay aroortii dambana caadi buu soo sara fadhiistay 2 maalmood baan ka maqnaa waan soo noqday waxaan war ninkii mee markaasina waa ka buurta adhiga ku raacaya marka dhirteennan mucjisooyin badan baa ku jira geed aan anigu u aqaanay in loo isticmaalo qaniinyada maska oo sunta maska inuu dilo ayaa meel cirshiida la yidhaha anoo dahab u doontay beri waa 96 halka imika dahabka laga helay baan waagaa dahab u doonay waa cirshiida la yidhaha waa meel geri cidla ah oo hal albaab keliya leedahay inta kale buur baa ku go-an maalinta aan tegay 5 qof keliya ku noolaa albaabkeeda nin baa xero looga ooday ninkii baan ku war ninkan maxaa ku dhacayo sheekh kaneeca ku dhacday bay yidhaahdeenoo dawana uma hayno deedna geedka soonahda la yidhaahdo soonah baa la yidhaha soonah waa geed xididkiisa loo isticmaalo qaniinyada maska iyo abeesada iyo meelaha abeesada iyo maska iyo waxaas yaallana uu ka buuxaa soonah baa la yidhaha baa waxaan ka fekeray war hadduu sunta maska dilayo geedkani sunta kaneecadana wuu dili karaa deedna xididkii baan u soo saaray waan u karkariyey wuu cabbay been idiin sheegi maayo 5 daqiiqo ka bacdi dhidid waaweyn baa ka soo booday
أبو صوص رفض يستينك مركان جيت كاسون هذا وكريه وصوص رفض يست لما ماركي دمنا وابونا لعنا وحنا لو كريه مركا دول كينن مركا سا أمرته وديابيسا غنائمتا تعالى aan cidi hoos u eegaynin inta soo dawo oo sunahow lagu soo daldalayo waxay yiraahdaan kimikadu daaweynteeda albaabna way kugu furaysaa albaabna way ka xidhaysaa laazim dawada aad cuntay kimikadihi waxna way ku ilowsiin mushkilad kalena way kugu furaysaa laakiin hadii dhirta nin aqoon leh aad ka martido hadaanu waxba ku tari waxba ku yeelmayso hadaad bariis cunto maxay ku yeelayaa خمون با wax ku daweyna shamaar ba wax ku daweyna waa khamuunaadka iyo fasaaisha yaryar caadiga hadii aanay waxba ku anficin waxyeelo ku geysanayso laakiin kimikadu dib badan bay dabada ku wadataa marka baale ma sha Allah u dhugma yeesha qaniimo badan baa dalkeena taala ubadkeenuna inaan taariikhda tagno ayay u baahan yihiin